magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa laga furay garoon cusub ay xariga ka jareen gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiide. garoonkan ayaa waxaa furay dhalinyaro ka soo jeeda magaalada Laascaanood. munaasabada xariga jarkan garoonka ayaa waxaa ka hadlay dhalinyaradii furtay garoonkan Olympic Stadium. runtii garoonku marxalado badan buu soo maray maanta laakiinse waxay tahay guushii oo waxaan u joognaa xafladiisii iba furkaay waad ku maasantihiin dhammaantiin waan soo dhaweynaa gacmo furan iyo qalbi furan baan ku soo dhaweynaa bahda saxaafadda si gaar ah iyagana u salaaminaa welcome baan leenahay waqtiga yar aawadi intaasaan ku soo waxa weeyaan horta waxyaalaha laga faa'iideysan karo waxa kamid ah dhalinyaradu inay noqoto dhalinyaro wax isku day kartaa maadaama ay tahay maanta garoonka quruxda badan aynu joogno uu yahay garoon ay dhaqan galiyeen dhalinyaro daadeena horta aad iyo aad baan ugu mahadinayaa saaxiibadeeda garoonka furtay waxa weeyaan garoonkan oo kale horta hore garoomada ugu yaalay wax la yiraahdo magaalada ugu yaalay laakiin waxaan rajaynayaa garoonkan inuu yahay garoon wax badan kaga duwan garoomada hore marka loo fiiriyo xagga waasaca iyo wax la yiraahdo marka loo fiiriyo wax la yiraahdo xagga weynaanta marka loo fiiriyo meesha uu ku yaalo istiraatiijiyadeeda marka loo fiiriyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaa ka dhalinyaro ahaan insha Allah waxaanu diyaar u nahay in badan inaynu ka faa'iideysano magaalada balaaran oo koraysa awgeed runtii waxaan leeyahay wuxuu ku soo beegmay garoonkan furitaankiisu xilli ay dhalinyaradu aad ugu jilicsanayd oo waliba istiraatiijiyada uu ku yaalay ahayd meeshii ugu habooneed oo looga baahan ugu dambeyn waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Jiide yarto ay hesho aad baan soo dhaweynaynaa maamul gobol ahaan waa la shaqeynaa insha Allah runtii ciyaaruhu waa waxyaabaha marka laga hadlayo caafimaadka qayb lixaad leh ka qaataan oo jimicsigii iyo miisaankii la dhimayay iyo firfircoonidii bulshada iyo qofka bini'aadamka jidhiskiisa oo dhan waa qayb caafimaad ka mid ah runtii waa qayb ay dhalinyartu kaga mashquulayso inay qabyaaladii balwadii falalka xumaa ay geysanaysay tuugadii intaba waa wax laga mashquulayo oo waana wax runtii activity oo markasto dhalinyartu ay hesho Cabdilaahi Xamdi Qaran Horyaal TV Laascaanood.